kusoo dhawaada caawa iyo caalamka iyo taxana gaar ah oo aanu waraysiyo kula yeelanayno musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya doorasho xilligeedii dib uga dhacday waanigoo maxamed cabdi xaraare waxa ii marti ah musharax Shariif Sheekh Axmed waa madaxweyne hore uu hogaamiyay dalkan xilli xasaasi ah mar kale ayuu isku taagay xafiiska ugu sareeya ee dalka sida buu doonayaa in uu Soomaaliya u hogaamiyo ma haya farsamo kale oo lagu samata bixin karo siyaasadda cakiran ee Soomaaliya شريف شيخ أحمد كسر BBC Somali. ما سنت ولا أنا كبلا به هراي واحد نصيب وهالشيء إن أد ضلك الصومالي هو جامسو ما حد كحس كرتا قوليه أد جارتي سد حدي السنة يستقال كبلاد ضلك هو جامنيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما سنتهي BBC ده شغال هذا بس بوحدة يعني نقوم هذا علينا فرصة إيسيا لأن عدكي جارسية ضدك الصومالي المالي جوجان بقى waxaad ogtahay in amniga magaalada Muqdisho markii xilka la dhiibay in badan oo kamid ah oosan dawladda gacanteeda ku jirin waxaan u maleynaa 6 degmo inay ahayd inta dawladda gacanteeda ku jiray waxaana ka tagay dalka iyadoo ciidamada dawladda iyo AMISOM ay joogaan maxaan ku iraahdaa meesha la yiraahdo Shalambood iyo balcadna ay dhaafeen magaalada Muqdisho amaan lagu maraayo waxay kamid ahayd guulihii Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilliga aan joogay aan ku xasuusan karo sidaas oo kale aniga waxaan hogaaminayaa dawlad ku meel gaar ah oo ku shaqeysa ahdi ku meel gaar ah waxaan ka tagay dalka asagoo doorasho leh Ilaahay ayadana waa igu guuleeyay sidaas oo kale waxyaabaha ay igu guuleeyay oo aan xasuusan karo waxa kamid ah dalkan oo dhowr iyo 40 sano aysan doorasho gudihiisa lagu qabanin in caasimadda lagu qabto doorasho ayadana waxay ahayd guul kale oo aan xusi karo marka inahaas aan ka sheegi karaa waa gartay Sheekh Shariif Sheekh Axmed guulahaas aad iminka tixday waxba su'aal galin maayo laakiin baarlamaankii 9aad iyo kii 10aad ba maysan ku qancin in ay kugu tixgeliyaan guulahaas aad iminka sheegtay mar kale oo saddexaad ma muuqataa inaad gudinaan af lahayn aad geed aan go'ayn ku wada guusha iyo cid guuleysanaysa ilaaha shaqo ku leh aniga waxa isaaran waajib ah inaan isu soo taago xilka u sheego xildhibaanada qaranka inaan u taagana xilkaas aaminsanahayna inaan dalka meesha uu joogo ka qaadi karo ilaahay hadduu idmo gaarsii karo meel wanaagsan oo amni ah dastuurkii hadda raadkiisa iyo shanqartiisa la waayay inaan soo celi karo doorashada jiitatay dhamaadiida inaan doorasho toos aan ku soo gabagabay karo cadaaladda dhuntay ee la wada baadi doonay inaan soo celi karo dalka kala xiran iyo dhibaatada baahsan ee ka jirta inaan wax ka qaban karo conflict-ka ka jira dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ayadana inaan xal u heli karo marka waxaan aaminsanahay xilli dib loo milicsado guurihii xilliga aan joogay la gaaray maxay ahaato lana dhihi karo waa xilli munaasab ah inaan qaranka hogaamiyo inay tahay waa gartay laakiin haddii aan Shariif Sheekh Axmed ku xasuusiyo 2009kii markii aad madaxweyne noqonaysay 209 iyo 30 cod ayaad heshay 70 cod ayaad heshay 2012kii 2016kiina 49 ayaad heshay hoos ayaad u sii socotay marka xildhibaanada Soomaaliyeed ee kala duwan ma diidin inaad hogaamiso dalkan aniga waxaan aaminsanahay mar walba qofka moral ahaan u guuleystay inaan ahay ay iga dhiman tahay kaliya inaan labadiiba isu kay raacaan codka iyo moralka labadaba inay isu kay raacaan waxaan aaminsanahay inay noqon doonto insha Allah sanadkii moralka iyo tirada codka Israa'iil lahayn insha Allah tabaaraka wa taala waa gartay baarlamaanka 10aad ee hadda xilligaaga doortay sida uu ku soo baxay dad badan waa ay durayaan adiga xilka lagu doortay maxaad ku tilmaami lahayd xilkan waa xil reer ay bixiyeen xildhibaanku wuxuu ku asteysan yahay
qoyskii ayaana xilli hore go-aan gaaray in aniga xilkaas aan ku mithalo procedurkii la marayaan maray marka dadku hadal ma waayaan laakiin waxaan aaminsanahay inaan procedure saxana u maray reerkiina si kale harla-aana inay igu xurmeeyaan waana ku mahadsan yihiin su-aasha ugu horreysa markii aan ku weydiiyey waxa ugu horeeya aad sheegtay ee ololahaagana uu inta badan ku salaysan yahay intii aad isu taagaysay xilkan waa arinta ammaanka background ama aqoon rasmi ah oo ammaanna ma lihid maxaad isugu qaadaysaa arrintaas waxaan u malaynaa waxa buwaagta ku qoran iyo waxa qofka waaqic ahaan u fuliyo inay kala muhiimsan yihiin buugga cid kasta akhri karta cid kasta wax ka sheegi karta dad badanaa buug qori kara laakiin waaqica laga hadlaayo aniga waxaan kasoo bilaabay 2004 ilaa 2012 waxaan hogaaminayay waxaan qayb weyn ka ahay dalkan hogaamintiisa arrimihii amniga oo isoo waajahayna kulligooda ilaahay waa ii fududeeyey marka waxaan aaminsanahay markhaati kaloo hadda maanta laga baahan yahay inaysan jirin aad iyo aad ayaan u fahmay shariif sheekh axmed xilligaas ee aad ii sheegtay 2004 iyo markii aad maxkamadaha hogaaminaysay 2006 dad fara badan oo Soomaaliyeed hadalladaada aad ayay u soo jiiteen laakiin markii aad madaxweyne noqotay waxaa muuqatay inay isdhintay soo jiidashadaada dadka maxaa sababaad is leedahay ma haaraha siyaasadeed baa ku saameeyay marka laga hadlaayo dawlad iyo dal burbursan iyo dal qofka hogaamiyaha oo rabo inuu u dhigo hab dawladnimo iyo hadal maxay ahaato ummadda isu keeni kara waxaad ogtahay dadka inuusan soo wada jiidanaynin aniga waxaan ilaahay uga mahad celinayaa in maalintii halkan aan imaday 2009kii magaaladan sidii ay ahayd iyo dareenka dawladda laga qabay maalintii aan ka tagaayo oo ka duwanaay ummad Soomaaliyeed oo sacbatumaysa oo dawlad jecel oo wax dooratay oo aaminsan dawladnimada inaan ka tagay meesha marka aan imaanayo dadku dawladnimada ay diidanayeen u arkayaan wax dhibaato ku ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su'aalahan ku weydiinay waa su'aalo taariikho hore u dhacay laakiin haddii aan iminka hore u socdo oo haddii aan ku weydiiyo su'aalo ku saabsan waxa aad ka qabanayso mustaqbalka haddii doorashadan ilaahay kugu guuleeyo ammaankaba aanu ka bilaabno waanu ogsoonnahay in al-shabaab xilliga hore aad la dagaalamayseen iyo iminka ay wax badan iska bedeleen haddii aan khaldanaana adiga isixi kara qorshe cusub maxaad haysaa oo al-shabaab aad uga hortagayso arrimaha amniga kuma habboona in laga sii hordhaco laakiin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala qorshahaygu wuxuu yahay in dadka Soomaaliyeed amni iyo nabad ay ku naaloodaan ay helaan dawladda soo socota haddii ilaahay ii qora inaan hogaamiyana ay waxyaabaha ugu weyn oo ay ka howlgeli doonto ay yihiin arrimaha amniga ama ha noqoto magaalada Muqdisho ama meelaha kale ay dhibaatada ku hayaan ciidamada qalabka sidana in loo abaabuli doono hab saameyn xoogan ku yeela doona amniga keenina doona qof kastoo Soomaaliya inuu gurigiisa nabad ku joogo deegaanka rabana oo ku aadi karo nabad iyo cabsi la'aan insha Allah tabaaraka wa taala shariif sheekh axmed qodob kale oo muhiim ah oo madaxweynayaal aad adigu ku jirto aad ka gaabiseen ama aad wax badan ka qaban waa qodobka Somaliland muddo ayuuna taagan yahay maxaa mar kale kaaga qorshaysan inaad xalliso arrimaha Somaliland arrimaha Somaliland waa arrimo masiiri ah muhiim ah dawladnimada Soomaaliya waxaa ogtahay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u suura geliyay inuu furo albaabkaas inaan ahay oo ugu horeeyay meel fiican ayuuna soo gaaray haddana wuxuu igu jiraa ajandaha horotabinta leh wuxuuna noqon doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala mid xukuumadeydu ay ku dhiirato in ay wax dhaba miiska la tagto dhiiranaantaas aad ii sheegayso ma ku jirtaa Somaliland in loo ogolaado inay dal madax bannaan noqoto annaga dhinaceena waxa aan xoojinayno ama aan u aragno inay u fiican yihiin labada dhinacba waa midnimadaas ayaana doonaynaa inaan walaalaheena ku qancino midnimadaas oo aan rabno inay ahaato midnimo ay ku sharfan yihiin ku iloobaan dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkii ka soo gaaray dawladdii dhexe waxaana u aragnaa in labada dhinacba ay u wanaagsan tahay midnimadu awoodooda ay kor u qaadi doonto dhinac walba ha noqoto xagga mataqaanaa gobolka aan degannahay ee geeska Afrika xagga dhaqaalaha
dhinac walba inay u fiican tahay midnimadu waana garan karaa tabashada iyo dhibaatada walaalaheenna reer Somaliland oo ay tabanayaan waxaan ahay ruux aad uga dharagsan kana garawsan laakiin haddana ajandaha anigu aan xambaarsana ama dawladdeedu aan xambaari doonto midnimo. aad ayaad u mahadsan tahay. horaantii waraysigan mar kale waxaad ka dhawaajisay inaad cadaaladda wax ka qabatay. waxaanu ognahay adiga iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajoba inaad ku guuldaraysateen inaad dhistaan maxkamadda dastuuriga ah, dastuurkana aad qabyo tirtaan. iminka maxaanu kaa qornaa oo aad arrintaas ka qabanaysaa haddii aad xilkan ku guulaysato mar kale? cadaaladdu waa lafdhabarta qorshaha dowladnimo ee aan rabno inaan ku howlgalno. maxkamaddana waa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa sanadka ugu horeeyaba inay soo dhammaystiranto. garsoorka dhibaato fara badan ayaa ka jirta, kaliya kuma koobna nidaamka markaas jooga iyo aragtidiisa, caqabaad fara badan oo hor yaallaa jira. marka kuwaasaa waxaa loo abaari doonaa si wanaagsan. haddana waxaan muddadii dambe ku jirnay xog aruurin culeysyada hortaagan garsoorka uu ka dhaqaaqi la-yahay. maxaa yeele waxaad ogtahay dal aan cadaaladu ka jirin ama garsoorkiisa uusan dhammaystirnayn, burbursan, kalsooni darra ka jirto, amni darra ka jirto, in uusan samay karin horumar la taaban karo. waa gartay caqabaadkaas aad tirtay inkastoo aad ii sheegtay inaad iminka xog aruurinaysaan. xilliga aad madaxweynaha ahayd caqabaadka ka hor istaagay in maxkamadda dastuuriga la dhiso dhowr ma ka xusi kartaa? horta inaad ogtahay inka lama aqaano guddiga garsoorka dhammaystirkiisii iyo howlgelintii maxkamadda ama maxkamadaha xilligaas ayay soo bilowdeen. kadibna waxaan aada ugu mashquulnay arrimihii doorashooyinka. marka fursad aan ku dhisno maxkamadda ma helin. marka waxaan aaminsanahay hadda inaan heli karno fursaddaas. aadna ugu baraarugsannahay xilligii lasoo dhaafay labadii nidaam oo iga dambeysana runtii waxaan u kuurgelayay sida ugu wanaagsan oo cadaaladda dib loogu yagleeli karo. waxaanu ognahay Shariif Sheekh Axmed inay maqan yihiin hay-ado badan oo masiiri ama muhiim u ah in la dhiso maxkamadda dastuurka. 4 sano oo aad xilka madaxweyne qabato ma kugu filan tahay inaad waxaas soo dhammayso oo maanta ma kaa qornaa inaad dhisi doonto maxkamad dastuuri ah haddii aad dalka qabato? aniga biidni illaahi tabaaraka wa tacaala 4 sano meeshay ku dhammaato maxkamadda dastuuriga ahayd waa dhammaystirantahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waa mahadsan tahay Shariif Sheekh Axmed. haddii aan su-aal dib kuu celiyo, waxaad hogaamisay maxkamadaha islaamiga ah. taariikhdaada maxkamadaha oo dhinacyo badan leh ma ku faantaa? aada iyo aad waxay ii ahayd fursad weyn oo runtii aan ugu adeegay dadka Soomaaliyeed iyadoo markaas aysan ka jirin wax nidaama dalkan, dhibaato baahsan ka jirto, dilka, dhaca, kufsiga, afduubka. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu mahad celinayaa in uu ii adeegsaday xilligaas aniga iyo dadkii saaxiibada ahaa ee aan soo wada shaqaynay. waana lagu naalooday, waana ku faanaa. waa gartay dalka Soomaaliya waxaad ogtahay inay mar walba ku soo noqoto arrimo abaaro oo aanan laga sii hordegin ama aanan loo dhisin hay-adihii wax ka qaban lahaa. waan xasuustaa xilliga aad madaxweynaha ahayd abaar daran ayaa dalka soo martay oo aad si degdeg ah wax uga qabateen. qorshe dalkan Soomaaliya abaaraha ka dhacaya ama looga sii hordegi karo ma haysaa Shariif Sheekh Axmed? waan kugu raacsanahay. xilliyadii dambe abaaruhu aaday usoo noqnoqonayeen, dhibaatooyinkooduna aaday usii way ballaaranayeen. xilligii dalka aan hogaaminayna dhibaato baahsan ayaa dhacday. ilaaha nagu guuleeyay subxaanahu wa tacaala inaan adduunkana gurmud weydiisano, nala garab istaagaan, dadkiina si wanaagsan ay u gaarto. waan kugu raacsanahay haddaan qorshe dhammaystiran loo helin oo looga hortegaayo ama loogu diyaar garoobayo arrimahaas aafooyinkaas dabiiciga in ay adkaanayso in maxay ahaato 4 sano ama 3 sanoba abaar dhacda lala tacaalo. taasna ay keenayso mar walba in uu hakado horumarkii la higsanayay.
marka maadaama dalkaanu uu leeyahay webiyo waaweyn iyo bad iyo khayraad fara badan annaga qorsheenu wuxuu yahay in loo jeesto sidii looga faa'iiday lahaa arrimahaas webiyada marna waa guraan marna fatahaad ayay keenaan in xal loo helo oo webiyada loo helo meelo biyaha lagu kaydiyo kadibna dib loo isticmaalo in la horumariyo arrimaha wax soo saarka sida beeraha iyo xoolaha sidaas oo kale arrimaha kalluumaysiga ganacsatada yaryarkaana lagu dhiirigeliyo inay ku wajahaan wax soo saarkooda ama maxay ahaato dhaqaale soo saarka inay ku wajahaan meelahaas loona helo suuq dhiirigeliya maxaa yeele hadda waxaa ogtahay dalaga la soo saaro ama xoolaha nool ama kalluunka haddaan loo helin suuq loo iibgeeyo inay adkaanayso in ay sii socoto arrintaas marka waxyaabahaas oo idil waa waxyaabo u baahan shaqo dhammaystiran diyaar ayaan u nahay insha allah inaan qabanno shaqadaas mar kale dhaqaalaha ayaad ka hadashay horaantii waraysigan arrimahan aad hadda ka hadlaysana dhaqaalo fara badan ayay u baahan yihiin halkee laga helaya haddii mar amni la helo ani waxaan aaminsanahay inay fududaanayso in la helo dhaqaale waxaa jiri karaya dowlado jecel inay maalgashadaan dalka oo aan aad iyo aad u soo dhaweynayno waxaa jira wadahadallo lagula jiro bangiga adduunka iyo IMF-taba ayagana waxaan dardar geli doonaa dhammaystirka arrimaha deyn cafinta si ay Soomaaliya ugu fududaato in ama la maalgashado ama ay helaan hab kale oo loo maalgeli karo maxay ahaato khayraadka dalka iyo wax soo saarkaba waa gartay waxaa soo noqnoqday Soomaaliya heshiisyo caalami ah oo lala galay dawlado iyo shirkado aanan sidii la rabay loo marin ama la hoos xulinaya dadka Soomaaliyeed arrimahaasi ma u indha furan tahay aad iyo aad heshiis kasta oo mugdo ku jira waa in miiska la soo saaraa heshiiskii hufan oo aan waxba ka dhinnayn waa la socodsii doonaa heshiiskii mugdo ku jirana waxaan ku dadaalaynaa in mugdiga laga bixiyo gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa Shariif Sheekh Axmed waxa kale ee aadka u soo noqnoqday Soomaaliya dawladnimadeedana ragaadiyay waxa weeyaan in ay isku milmaan baarlamaanka golaha sharci dejinta iyo golaha fulinta golaha sharci dejinta haddii aad madaxweyne noqoto ma u madax bannayn doontaa shaqadooda in ay qabsadaan sida taariikh ahaan baa aad u ogtahay aniga weligay baarlamaan ma faragelin haddana ma farageli doono baarlamaankana waxaa u yaalla howlo waaweyn oo la rabo inuu guto 4 sano soo socota marka waxay iiga mid tahay mabaadi'da asaasiga ah Shariif Sheekh Axmed ma ahayn miyaa mid aad ku faragelisay baarlamaanka maya marxalad aan caadi ahayn ahayd baarlamaan lama faragelin khilaaf oo baarlamaanka yimiday waxa ogtaa baarlamaanku intay mataqaana buuq badan sameeyeen oo gudoomiye rideen mid kale aan doorano dhaheen marka dalku inuu san fawdan naqanin waajib madaxweynaha saaran waaye waliba gaar ahaan xilliga adag marka kala madax banaanashada hay'adaha saddexda aniga waxay ii tahay mabda asaasiga taas ayaan ku shaqay doonaa insha Allah tabaaraka wa taala waa gartay Shariif Sheekh Axmed markii uu 2012kii xasan sheekh ka guuleystay dalka waad ka tagtay waad ka maqnayd markii uu farmaajo guuleystayna in yar ayaad ka maqnayd siyaasadana waad ku milantay labada xilli maxay kugu kala duwanaayeen kow marka hore marka madaxweynuhu xil wareejiyo tuhmadu aad u badan tahay in uu ka fogaado meesha tuhmadana aad u fiican tahay taas 4 sano horaan u sameeyay 4 sano ka dambeysay laftigeeda waxaan qaatay isla fikradaas waxaad ogtahay inaan ku maqnaa in badan ama dalka Ingiriiska in aan soo laabtana crisis dalka ka jira keenay oo igu khasbay inaan joogo oo aan bixin maxaa yeelay waxa soo muuqatay in dalka uusan doorasho u soconin inaan la ilaalinaynin sharciga dawladii aan ku soo daalnay iyo nidaamkiina in uu fawdo isu bedelo ama sharcigii la hareer maro arrin la aqbali kara ma aha qofka madaxda ama mas'uulkana waxa laga rabaa xilliga adag dalkiisa oo u baahan yahay inuu dadkiisa dhex joogo marka labada xilli sidaas ay ku kala duwan yihiin haddaad maskaxda wax kale ku haysana bilcagsi aniga
waxba kuma hayo su'aal baan ku weydiinay isagaan siyaasi waa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay fahamtidaan rabaa sidaas si fiican ku fahmay su'aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo Shariif Sheekh Axmed haddii madaxweyne lagu doorto qorshaha ma kugu jirta inaad qof dumar ra'iisul wasaare u magacaabo wax diidaya lama arko xaqay u leeyihiin aniga waxaa muhiim ah qof xilkaas qaba kara oo ka soo bixi kara waajibaadka qaranka marxaladan hadda la joogana munaasab u ah ayaa muhiim ah Shariif Sheekh Axmed musharax madaxweyne sanadkan 2022 aad iyo aad u mahadsantahay adaa mudan